maxaa dhacaya haddii ay midoobaan wadamada carabta. fikradda ah inay midowda carabi waa fikrad soo jiitamayda muddo ama la dhihi karo waa qiyaali, laakiin maxaa dhacaya haddii ay midoobaan dowladaha carabta. wadamada jaamacadda carabta ayaa ka kooban 22 dal, waxayna ku eegi doonaa dhinacyo badan sida juqraafi ahaan, dhanka dhaqaalaha, tirada dadka, awoodda xagga militariga. haddaba aan mid mid u dul istaagno qodobada. juqraafi ahaan, haddii ay midoobaan wadamada carabta, dhanka masaaxada waxa ay ku fadhinayaan dhul dhan masaaxa ahaan 13.3 kilomitir oo laba jibaaran. taasi waxay ka dhigaysaa dowladda labaad ee ugu dhulka weyn adduunka marka laga soo tago wadanka Ruushka oo isagu ah wadanka ugu dhulka weyn caalamka, waxayna yeelanaysaa xeeb dhirkeedu yahay 19 kilomitir oo laba jibaaran, taasi oo ka dhigaysa wadanka sagaalaad ee ugu xeebta dheer adduunka. waxayna kulansanaysaa bado, badweyno iyo marina biyoodyo muhiim ah sida badda dhexe, badda carabta, badda cas, taasi oo ku kaar noqonaysa wadamada carabta kaliya, badweynta Atlantikada iyo badweynta Hindiya, marinka Jabal Daariq, marinka Baabul Mandab, marin biyoodka Hormuz iyo kanaalka Suways. waxayna noqonaysaa carabi buundada isku xirta bari iyo galbeed. sidoo kale dhanka dadka markaynu ka fiirino midowga dowladaha carabta ayaa noqonaya wadanka saddexaad ee ugu dadka badan caalamka marka laga soo tago wadamada Shiinaha iyo Hindiya, waxayna tirada dadka gaaraysaa 400 oo milyan oo isugu jira dad kala lahjad ah, kooxo iyo qowmiyado kala gedisan oo kala diin ah. dhanka dhaqaalaha, haddii ay midoobaan dowladaha carabta waxay gaaraysaa wax soo saarka naftada 26 milyan oo fuusto maalintii. taasi waa 3 meelood meel guud ahaan wax soo saarka dunida, taasoo la micno ah inay iyagu jaangoonayaan qiimaha naftada. sidoo kale waxay yeelanayaan gaaska dabiiciga, taasi oo ka dhigaya keydka midowga wadamada carabta ku dhowaad 55 trilyan mitir oo 3 jibaaran, waana 30% guud ahaan keydka caalamka. dhanka beerashada, midowga wadamada carabta ayaa dhulka beerashada ku wanaagsan wuxuu gaarayaa 600,000 oo mitir oo laba jibaaran, taasi oo ka dhigaysa wadanka lixaad marka laga soo tago wadamada Mareykanka, Hindiya, Shiinaha, Ruushka iyo Baraasiil. iyana marka laga hadlayo dhanka wax soo saarka iyo miisaaniyadda dakhliga gudaha, haddii ay midoobaan wadamada carabta wuxuu gaarayaa 6 trilyan oo dollar, taasi oo ka dhigaysa kaalinta afaraad ee adduunka ka gadaal wadamada Mareykanka, Shiinaha iyo midowga Yurub. dakhliga shakhsiga qofka ayaa isna gaaraya 7,500 oo dollar, taasi oo ka dhigaysa kaalinta 79aad ee 184 wadan ee adduunka. dhanka ciidanka, daqiiqada ay midoobaan wadamada carabta oo ciidankoodu noqdo ciidan qura waxa uu noqonayaa ciidanka carabeed ciidanka ugu weyn ee taariikhda soo mara marka laga fiiriyo dhanka tirada ciidanka, waxayna gaaraysaa 4 milyan, taasi oo ay kaalinta kala wareegayaan wadanka Shiinaha oo haatan haysta ciidanka ugu badan adduunka oo gaaraya 2.5 milyan oo ciidan ah, halka tirada ciidanka kaydka ay gaarayso 3.5 milyan. dhanka dagaalka ama wajahida cadawga, diyaaradaha dagaalka ee midowga wadamada carabta ayaa gaaraya 5,000 oo diyaaradaha dagaalka ah, taasi oo ka dhigaysa midowga wadamada carabta kaalinta labaad marka laga soo tago wadanka Mareykanka oo haysta 14,000 oo diyaaradaha dagaalka ah. dhanka ciidamada badda oo noocyo kala duwan leh ayaa tiradoodu gaaraysaa 1,100, taasi oo ka dhigaysa inay hoggaanka u haynayaan ciidamada badda dhanka awoodda. sidoo kale dhanka dabaabaadka ayaa gaaraya 18,000 oo dabaabaad, taasi oo ay hoggaanka iyana kala wareegayaan Ruushka oo haatan haysta 15,000. sidoo kale dhanka saanada midowga carabta ayaa ku dhowaanaysa 123 bilyan oo dollar, taasi oo ka dhigaysa kaalinta saddexaad ka gadaal wadamada Mareykanka iyo Shiinaha. aragtida maanta marka loo eego xaalka hadda ay ku jiraan wadamada carabta ma noqonayaan awood sida Mareykanka iyo Shiinaha, iyadoo loo eegayo inaynan faraha ku haynin hubka dowladaha haysta aan lagu soo degdegin, waana hubka sida daran wax u gumaada ee nuclear. laakiin dowladaha carabta haddii ay midoobaan waxay noqon karaan mid aan la ihaanaysan, lagana heebaysto, lana loodin karin. wadamada carabta ayaa inta badan maanta waxaa ka jira mushkilado. Liibiya dowladii General Haftar baa qoorta isugu jira, Yemen Xuutiyiin iyo wadamo Carabeed oo Sacuudiga iyo Imaaraadka hogaaminayaan baa ku hardamaya, Suuriya, Ciraaqna Kurdi iyo Carab baa ku dagaalamaya, Suudaanna waxay kala qaybsan tahay labo, koonfur iyo waqooyi. taako kasta oo dhul Carab ah wuxuu kala qaybsan yahay laba qaybood oo iska soo horjeeda, laakiin fikirkeena Carab midowda waa mid laga midaysan yahay. Carabina waxa ay midowday mar iyo laba ka badan, waliba iyaga ku midaysan hal calan sida dawladii Umayyidiinta, tii Cabbaasiyiinta iyo kuwa kale sida dawladii Cismaaniyiinta. waxaa jira arrimo badan oo keenaya xididna u noqonaya inay midoobaan Carabi, sida dhaqanka, diinta, taariikhda, luqadda iyo isku dhawaanshaha xagga juqraafiga, iyo in ay Israa'iil haysato qalbiga ummadda oo ah Qudus
waxaana loo dalisanayaa lana cuskanayaa inay midoobi karaan carabi waa tijaabooyin caalami ah oo la arki karo sida midowga gobollada Ameerika midowga Yurub xitaa Hindiya oo ay ku midaysan yihiin qoomiyado iyo diimo kale ka disan gabagabadii annaka oo soo sheegnay in haddii ay midoobaan wadamada carabta ay kaalinta labaad ka galiyaan xagga masaaxada halka ay kaalinta labaad ka noqonayaan dhanka tirada dadka saddexaadna dhanka dhaqaalaha labaadna ka noqonayaan dhanka ciidamada kaalinta koowaadna dhanka soo saarka naftada lixaadna dhanka dhulka beerashada ku habboon haddaba iyagoo kulansanaya waxa uu darajaa haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa u diidaya inay carabi midoobaan waad ku mahadsantahay daawashadii la socodka barnaamijkan